بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا قا مقعيقو يهي يوسف عثمان عبد الله يوسف شاعر waxaan saaka halkan aanu ku duubaynaa barnaamij suugaaneed oo ku saabsan fardaha waxa maalgelisay hay'ad wadaniya oo leeyahay Soydafo oo gacan ka helaysa ama ku xidhan midowga Yurub ayaa barnaamijkan isku soo dubariday barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay fardaha iyo kaalinta ay ku lahaayeen noloshii hore ee bulshada Soomaalida waqti lagu mahmaahay haddaad xoolo doonayso xamara ag joog haddaad xila doonayso xamara ag joog haddaad xaraga doonayso xamara ag joog xamaro ama waxa laga wadaa waa midab farduhu leeyihiin xamarku dadka qaar magaalada xamar bay u qaataan laakiin waa midab farduhu leeyihiin xamarku marka waxa la leeyahay xoolahana isaga lagu helayaa xaragada isaga lagu helayaa wax walba isaga lagu helayaa kaalin aad u muhiim ah bay kaga jireen xilliyadii hore farduhu nolosha Soomaalida mar baa la siisan jiray faraska 20 halaad oo geelo isna aad loo jeclaa mar baa la siisan jiray 15 mar baa la siisan jiray 10 intaba marka waxaan doonayaa in aan soo qaato anoo ka duulaya aqoontii ay Soomaalidu u lahayd fardaha sheeko caana iyo geeraar labadaasaan doonaya inaan soo qaato aan sheekada ku horeeyay waxa la nin iyaba israacay odaya oo waayeela oo marka aan indha aad wax uga arkaynin iyo inaanu adeeru yahay odagu waa farda aqoon raa'iba dabadeetana farda waganka waxa la yiraahdaa markay fardu badan yihiin baaf Soomaalihan wagan la yiraahdaa oo meel fadhiya ama ku xareysan ayay dabceen inay dhacaan laba faras bay doonayaan ka dhacaan dabeedna odaga inankii uu tilmaamay wuxuu yiri galo faraska noocaas ee qoobka halka ku xoqaya ee xagga u jeeda odagu faraska arki maayee aqoontu farda u leeyahay ku qiyaasaya xadhiga inuu ma hayso baad buu yiri wuxuu haya xadhiga ku qabo laba faras bay la baxeen habeenkii oo dhan bay fardihii mireen waagu markuu soo dhawaaday bay fuuleen dabeetana markii waaga bariya fardihii la eegay baa la waayay labadii faras raadkii baa la arkay col baa ka daba baxay inankii baa wuxuu yiri waa layna daba socdaa odagii ku yiri fardaha ina daba socda maxaa soo horeeyay buu wuxuu laba faras oo qaaca ah yaa soo horeeyay qaace waa mid farduuleeyay wuxuu cadceeda indhaha u saar waxba kama arka cadceeda labadaas waa hadheen cadceedi baa reebtay laba kala soo baxay buu waa maxay buu waa xamar buu marka suuri meel ciida oo dixa ma inagu dhowdahay uu dhaha inagu dubuur ciida reebaysi labadaasna waa hadheen laba kala soo baxay buu waa maxay buu waa ashkir buu buur meel buuri ma inagu dhowdahay buu ha dhagaxa ma mar ee dhagaxa inagu dubuur labadaasna waa hadheen maxaa soo baxay buu caynab fariska tukaha ee madow caynab laba caynab baa soo baxay ayda inagu dubuur hadaba qodaxda reebtay isna labadaasna waa hadheen maxaa soo baxay buu labadaynu ku joogno labadoodii waa baroor jilba madow ee ku joogaan waa faraska fardaha loo gaato afar midable ooftiyo fanka iyo adhaxdu weynaatay oogada madoobow baroor ila ciyalaan dooni waa halkii ninku ka yiri baroor baa soo baxay buu labada aynu ku joogno wuxuu hadaba kuwa meelina reebi mayse faraska jaraha u siida wixii orod ku jirana ku dhufa jeedalka ninkii xalay dixidaajay saakana dareemo ugu luqluqay ayuun baa ku leh kaasina waa inaga xalay oo dhan waynu mirayni kuwada gaaja reebaysa markii isla maalisa waalo cadceedu kululaato ayay harayaan oo gaajadu reebaysa siida labadeen fardii halkii ayay kula galbadeen sheekadaasi waxay ka turjumaysaa ninka odayga ah faras waliba halku u liito iyo waxa reebaya ayuu sheegay qaar wuxuu ku reebay ood iyo ay qaar wuxuu ku reebay buur iyo dhagax
qaar wuxuu ku reebay dix qaar wuxuu ku reebay cadceeda faras ba meel buu ku reebay ninkii gabeena waa kii isaguna sidaas oo kale u dhigay yiri af adayg bulaalaan ku nacay arha soo ridee cilla ururshay buu ku gashay aniga hay keen axa laga dhigiyo aynab waa faras ogaadeen wadaad baa u badan loo soo aniga hay keen ninkii isna kale gabi shakada waxaan u soo qaatay aqoonta ay Soomaalidu u lahayd fardaha iyo markay ku dagaal galayso iyo marka ay daajinayso inta waxaan uga gudbayaa geeraar baan soo qaadanayaa nin la yiraahdo la oran jiray Ilaahay u naxariistay Maxamuud Daalin Maxamuud Jaamac yaa geeraarka lahaa isagoo duubay ajalad ku duubay ayaan ka soo guuriyay mar dambana waan arkay iyadoo la qoray meel kale lagu qoray laakiin anigu isagu duubay oo ka sheekeynaya qisadii ayaan wali hayaa ajaladii uu ku duubay xilli ku beegan 1930 baa Ingiriisku qaban qaabiyay tartan fardaha ah dabeedna wuxuu faraska lambar 1 ka gala waxaan siinayaa abaalgud Maxamuud isagoo faraskiisii koolkoolinayo intii aan tartanka la gelin dhoolatus iyo hanjabaad inaan maanta faraskiisa kaalinta koobaad cid ka qaadaynin isagoo tilmaamaya ayuu geeraarka tiri farasku waa amaanaya wuxuu neefkan qaararka weyne quwadiisa la yaabay hooyadii qadan weeye qowlaanay uurka ku qaaday qalalaasiya boob iyo meel qasaare ka duulay oo qolana aanay turaynin oo rasaas la isku qubaayo oo meydku qaararka daylay oo qaawo geel ololeysaan qoolaaba uu la wareegay qormadii balanbaal qoyskii reer Abokor quraacdu ku dhashay qoolkii baa laga dhawray dawan qaaxa ballaaran baa qoorta loo galiyay rag rasaas ku qabiiban baa qaatilkii ka ilaashay rag rasaas ku qabiiban ya qaatilkii ka ilaashay qabaalkii xanigeed iyo haadla qorriyadeeda iyo qolmadoodii kulaale durdurkii qulqulayay buu hadba qaar u tallaabay dixidii ku qubnayd iyo dareentii buu laba qaaday qomaati buu u mirtay qayb baa looga shaqeeyay markaasuu quwad dhaafay qurux waa u isxal qiimo waa u taleexi quwad waa u maroodi qafal waa u xamar qaayib qorshana waaba u kaa neefkii maanta la qooqana qoomama u dambayn qoobabkiisa fudaydka qanaantu kor u taagi qardabaynta muquuska qayb baa loo arkayaa ninna loo qarin maayo keebaa soo qadinteeno qudheebaa u baxaya waxaa qoob yar la keenay qoob yar fardaha dheerayaa la yiraahdaa ee la jecel yahay faraska gaabiyana qoob weyn baa la yiraahdaa waxaa qoob yar la keenay qaar rawaaban aqaan qaar rawaan yar qiyaasayo qolana maanta ma hayso haddii la isku qacsiiyana qaabka uu ordaayo aniga way qorraxdaa keebaa soo qadinteeno qudheebaa u baxaya quyar hoosu habaarkiyo isha la isku qalloocso quwadii rabbiga iyo quraan ruugu duceeyiyo qardhaas ba uga xijaaba qubud maaha gaboobay qayda maaha darmaana qayax maaha iftiina qaaja maaha cadaana qumba maaha kudaaya qobtal maaha sariiga qufla maaha magaana qayr maaha madowwa qallaf maaha margaaga qoona maaha kudaada qowlax maaha cirweyn qolshax maaha wareega qufla maaha xaraana qoob weyn gaabiya maaha in kastay cara qaado qaarandid qasan maaha laba qaariyo xalena wuu qatanaayo qoomii baa sawax maaya laba qaariyo feedhiyo waa calool qamadaada keebaa soo qadinteeno qudhee baa u baxaya maxamed geeraarkiisa soo farshaxnimo badan ka muuqato intaas ayuu ku idleeyay de waqti badan ayay hadilisa mawduuca fardaha ka sheekay qaadanaysaa wax walbana waxa wanaagsan waxa urursan ee kooban ee qofku wax ka kala bixi karayo ama ummadda fariin u noqonaysa faa'iido marka barnaamijka fardaha halkaasan maanta ku joojinaya mar labaad waxaan idin xusuusiyo waxa isku soo dibariday barnaamijkan hay'adda wadaniga ah ee Sudayfa waxaana maal geliyo ay gacan ka heshay midowga Yurub. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.